dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Somaliland waxaa beryahan loo dheg taagayay xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Somaliland sida alla socotaan beryahan waxa ay dawladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somaliland tusaale ahaan magaalada la yiraahdo Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac garaad cali waxa kale magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamada ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayagoo ciidan wata tageen oo si sharci darro ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar ayagoo halka ka jeediyay khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaas awgeed dawladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dul qaadan mar dambe xaaladaha caynkaas waxa ay ku wargelinaysaa dawladaha deriska ee geeska Afrika in ay Somaliland tahay dawlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni kooda noolaanshaha ha yeeshee hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dawladda Somaliland muujinaysay dadweynaha reer Somaliland ciidamada qaranka dawlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dawladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Somaliland ee xaalad abuurka waxaanu ka codsanaynaa in ay ku waantoodo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalku ahaa waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dawladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado laba xuduud dhexdooda ciidamada Somaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dawladaha deriska hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dib dambe safaraha looga laabto السلام عليكم ورحمة الله ويسعنا